صالح يا فاسد مفسد يا مصلح dadku afarta qaybood mid waa صالح waa mid isagu wanaagsan kaliya bas naftiisu wanaajiyay dadka kalena waxba kama galin صالح baa la yiraahdaa waa صالح linafsihi waa qofka kaligii naftiisa wanaagsan wanaajiyay weeyaan midna waa muslix weeyaan naftiisana uu hagaajiyo uu toosiyay dadkana uu hagaajinayo wuxuu leeyahay oo khayrka kale ku soo xidhma buu leeyahay madaaristu furaya ummadii buu islaaxinaya quraankii buu baraya gabdhii buu asturka kala hadlaya sunnadii nabiga ummadda ugu yeedhaya masaajida tacmiirka ugu yeedhaya waa muslix weeyaan ka muslixu intuu adduunyada joogana ilaahay waxa uu leeyahay halaaga soo dadjin mayno وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون بإلهي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم إلهي ربك ماها كقرية ظلم كهلاقايا أيضو إهلكيكو أيهين كودتك وناقوك كشقاينايا دتك قرية دا كنول حتى هدي شركي أي كجران هدي فساد أي كجران هدي ظلم أي كجران لكن دد مصلحين وناقا أمدا لدحو ريقيا أي دح جوغان dadka islaaxinaysa ay ku dhex jirto ilaahay waxa uu leeyahay halaagoga soo dadjin mayno halaagi mayno amma haddii dadku ay yiraahdaan waan wanaagsanahay annagu dadka xunna waxba nagama gelin ka saalixa halaaga soo socda celin maayo macal isagana wala halaagi markaas صالح يا مصلح فاسد يا مفسد فاسد كنا واكن نفتيسه فساديه مفسد كنا واكن مدى فساد كلا دح سودا بلايada qeyliisa iyo meelaha ayuu dhalinyarada ku kulminaya dhalinyarada iyo gabdhaha iyo wiilashu meelaha ku kulmaan buu sameynaya mufsid ala talfasad meel walba dhigaya marka afarta qolo adduunyada ku nool صالح مصلح فاسد iyo mufsid marka mufsid muslix waa inaad noqotaa muslix dadku inay noo hagaagaan waa in laga shaqeeyo hagaaga ummadda